rabaa marka koowaad inaan ka mahad celiyo qabanqaabada tiimkii qabanqaabada munaasabadan soo qabanqaabiyey lagu xusayo lagu ducaynayo dadkii Soomaaliyeed ee walaalahayna ahaa khawaarijtu ay ku xasuuqday iskoyska Zobe kuwii hantidoodu ay ku burburtay kuwii ku dhaawacmay kuwii ku dhintay kuwii ku agoontoobay kuwii rajada ku noqday kuwii maaragtay murugada ay soo waajahday ayagoo faraxsan oo qoysas badan dadka noocaas oo tirada badan oo waxba galabsan oo goob dagaal aan joogin oo aan hubaysnayn oo aan maaragtay xataa haddii la dhihi lahaa dadkii dirirayay way aan dirirayn oo si nabadgelyo goobahoodii shaqada iyo dhulkoodii u socday dadka kuwaas ayadoo waliba nimanka khawaarijta ay furimo badan oo ay ka diriri karaan ay u furan yihiin maalinkaas dagaal baa uga furnaa masaajid cali gaduud maalinkaas hiiraan baa dagaal uga furnaa maalinkaas galgaduud buu uga furnaa maalinkaas bakool buu uga furnaa shabeellada hoose uga furnaa meel kastoo furina ayaa dagaaladoodu ka furnaayeen intay halkaa ka soo jiireeyeen oo ka soo baqdeen ayay cara iyo xasuuq u geysteen dadkii kilomitir 4 kilomitir 5 joogay maalinkii 29 bishii tobnaad nimankaas marka fulayada dhibaatadaas ay geysteen baa dadka Soomaaliyeed oo dhan qayb ka ahaayeen ay ka dhiidhiyaan wasaaradda arrimaha guduhuna ayaguna qaybtooda ayay uga dhiidhiyeen runtii waxa fariin cad ah in dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay u soo jeesteen oo awal isqarin jiray oo culimo lahaa oo haween lahaa oo dhalinyaro lahaa oo bulshada qaybaheeda kala dawladda lafteeda lahaa inay u soo jeesteen in banaanka lala yimaado in nimankaas la nacay in khawaarijtaas la nacay lagu nacay ficilkooda xun lagu nacay qallooca diinta ay aaminsan yihiin lagu nacay arxan daradooda lagu nacay bini aadam yaridooda lagu nacay inaysan dan Soomaaliyeed bawdinba oo ummadda Soomaaliyeed ka hortaagan yihiin dawladnimadoodii iyo nabadoodii ummaddii Soomaaliyeed waa taas waa soo jeesatay maantana waxay leeyihiin maya khawaarijta maanta waxay la taagan yihiin inay ayidaan taageeraan hawlaha dib u xiraynta ololaha dib u xiraynta ee dalka ka socda waxa weeye qof walba wuxuu iska soo qaadi karaa maalinkaas adigoo iskoyskaas maraya meeqa jeer baa martay qaar baa laga yaabaa subaxii inay mareen duhurkii mareen maalinkii ka horreysa mareen maalin ka sii horreysa mareen intaana yay marka cadow u yihiin ma dad gaar ay u socdeen mase dhammaanteen may noo wada socdeen dhammaanteen may noo socdeen nimankaas marka inaan meel looga soo wada jeesto qof walbaaba intuu karo arrinta ugu horreysa waxay tahay dhiiggii iyo kulli iyo waa la soo diiwaangeliyey dadkaan shubin qaarna waa soo shubeen arrinta xigta waa taakuladii dhaqaalaha ee shalay aan isku sheegnay oo wax loo qaybsaday qolo walba inay ka soo dhammaato berri haddii la yidhaahdo wax badan ma ahayn waxa la isku qoray waa wax la awoodo weliba maaragtay intaas iyo in ka badan qofkii awoodana inuu ku daro si aan qayb uga noqonno ololahaas guud waxaa qoraxdaan isku istaajinnay hool waa heli karnee waxaa qiyaasaysaa askariga maalin walba qorax taagan dhibku ku jiro oo aan yaraysanayno hal saac baa la taagnaa waayey dadkii waxaa weeye dhididkaa baxaya qaar baa biyo cabbaya oo biyahoodii gacanta ku wata laakiin askariga ka waran duurka ku jira oo maalin kasta dharkiisa aan dhaqanayn aan ogeyn meeshuu ka qadaynayo markuu meesha ka tago biyo inuu helayo aan ogeyn ee duurka ku jira ee dhiiggiisa haddana usii qowraya annagana hal saac iyo bar waa taagnaan lahnaa dhib baan nahay waxaana laka rabaa marka maadaama furintana lakugu jiro oo qoraxdiina lakugu jiro inta nagu soo aaday waxay tahay waa dhaqaalehena jeebkeenna waa hadalkeenna codkeenna waa soo sheegista sidii uu sheegay ninkii odaga hadda si iga horreeyey cabdifataax in la soo sheego reerkii qof ka maqan yahay inuu soo diiwaan geliyo adduunka qofka la waayo soo lama soo diiwaan geliyo wiilkaada gabadhaada habeenka hadduu guriga imaan waayo oo taleefankiisa dansan yahay oo meelaa u raadi sidaa weyd
soo lama soo diiwaan geliyo waxaan rabnaa qofka shabaab qoysku ka maqan yahay in la soo diiwaan geliyo waxaan rabnaa haddii qofka la og yahay oo laga shakiyo in la isku soo sheego waxyaalihii iska ahaa maxaa iga galay waxyaalihii ahaa aniga layma jeedee maxaan u raadsanayaa balaayo u qoonaansanayaa waxaasoo dhan waa laga yimidoo dadkoo dhan hadda dhimashay ku xukuman yihin dhammaan nimankaas khawaarijta waa aragtay mahadkarataygii tuugga ahaa khaa'inka ahaa ilaahay rasuulkiisa aan oqon inuu ku faanay inuu 100 qof uu dilay wasaaradda waxbarashada aan u soconno yiri wasaaradda waxbarashada yaa jooga arday iyo waalid ciidan ma joogo wasaaradda waxbarashada ciidan ma joogo wasaaradda waxbarashada furin maahan waxa ardayda Soomaaliyeed marka ha ogaadaan kuwa jaamacadaha dhigta oo danuhu ay ka gali lahaayeen iyo kuwa iskuulada dhigta iyo waalidkuba nimankaas inay yiraahdeen dadka aqoonta leh meeshii aqoonta Soomaaliya laga hagayay wasaaradii iyada ahayd baa taargad noo ahayd waana helno yiri waana ogtiin wasaaradda waxbarashada ma ahayn dadka la dhintay dad shacabuhu laayay xataa beenaale suu yahay waa u jeedin ninkaas beenaale waa nin tuuga waa khaa'in waa nin aan ilaahay rasuulkiisa aqoon waa nin manaxa ah waa ninkii aad aragteen tunkiisa iyo sidiisa iyo xooggiisa iyo xoolihii ummadda suu ugu naaxay waa ninka raba dhiiggaas inuu cabbo dadka oo ku noolaado oo ku faantamo waxa ilaahay camal saalixa dadku ay ugu dhawaadaan wuxuu rabaa ilaahay inuu ugu dhawaado dadkaas masaakiinta u laayay ayuu rabaa ilaahay dadkan inuu diin uga dhigo ninkaas marka khaa'inka iyo kuwa kale oo khaa'inada ah oo khawaarijta ah maanta fariin cad baa loo dirayaa wasaaradda arrimaha gudaha u diraysaa oo ah in halganka socda aan taageersannahay in aan ka soo horjeedno fikirka qowlka ficilka kooxdaas khawaarijta ah in dhidid iyo dhiig aan u hurayno dalkeenna iyo inaanan u baqayn oo ka cabsanayn ayay taa fariinta la dirayo waana sii wadaynaa waana sii soconaysaa qof walba dalkan mas-uuliyad baa ka saaran ka sokow inuu wasaarad u shaqeeyo ama yuusa u shaqayn qof walba mas-uuliyad baa ka saaran wixii amniga dhibaato u geysanaya hala soo wargeliyo adiga lagu sheegi maayo haddaa is leedahay waa lagu sheegayaa kulligeen askar baan wada noqonaynaa marka sida dadka Soomaaliyeed oo dhan oo Muqdisho degan iyo kuwa caasimadaha degan kuwan buulo barde ku soo aragnay runtii dal lagu faanay ahaayeen buulo barde maalin loo aan tagnay sabtidii nin askariya nin baa la sheegay hubaysan oo 20 kilomitir meel ah kaligii socda waa la arkay bulshadii baa soo sheegtay reer miyiga waa lagu baxay nin askari uu noqday oo reerkiisa u socda feejignaan meesha ay ka leegtahay meesha ay ka marayso dadkaas waa u jeedaan annaguna dariskeena iskama fiirinayno baabuurkan ka shakanana iska fiirin mayno waxaana la ka rabaa marka arrintaasi inay soo gabagabowdo waana arrin lagu yaqaanay bakhaaro iyo hortooda inta qof lagu dilo ama qof lagu baarto inaan inta kale aysan ka hadlin arrintaa waa soo gabagabowday midda shabaabku koonfurta Soomaaliya u degan yahayna taas waa aniga ima socdaana hebel bay u socdaana daaye aniga ima socdaana qabiil hebel bay lid ku yihiin daaye aniga ima socdaana hebel oo xukunka joogay lid ku yihiin daaye aniga ima socdaana askartay u socdaana daaye taas waa soo dhamaatay waa loo isku wada socdaa mahadkaratay tuugi mahadkaratay sheegay oo yiri wasaaradda waxbarashada u socon waana la helnay sidoo yiri beenaalihiis waa u jeedaan marka wasaaradda waxbarashada kulligeen shahaadooyin waxba la wada bartaa dhalinyaro la wadaya ma sheekada la soo tasdiiqinayo iyo qof la soo qaadayo wiilkaada oo yiraahday gabadhaada oo meesha la tagtay ayaad kula kulmi kartaa arrintaas marka nimankaas waa cadow waxaan iskula dardaarmaynaa feejignaan badan waxaan iskula dardaarmaynaa inaan qayb ka noqono ololaha socda qof walba intuu karo aad iyo aad baa u mahadsantihiin